asalaamu calaykum soo dhawow libaax iyo libaaxad maanta waxaan doonayaa inaan kuu sharxo filim lagu magacaabo Death Race. ka hor intaan u gudagelin muuqaalka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aashii taxanaha ahayd koley tani aaday ugu fududahay waxaan rajayn doonaa inaad ka jawaabto. dambi baarihii James markii uu ka takhaluso oo uu soo saaro arrintii gabadha waxaa markiiba u soo dhacaya taleefan kale kaa uu ugu yimid askari boolis ah isagoo ka codsaday inuu ugu yimaado xaruntiisa si uu ula xaliyo kiis laba nin oo lagu soo ogay in dhakhtar ay wax gaarsiiyeen. dambi baarihii markii uu yimaado waxa uu wareysanayaa labadii ninba wuxuuna weydiinayaa inay yaqaanaan marka hore dhakhtarka. kii koowaad waxa uu sheegayaa inuusan aqoonin dhakhtarka nooca ah oona jiifayba maalinkii oo dhan sidoo kalena uusan arkin muddo bilooyin ah dhakhtar ilko. halka kii labaadna uu sheegayo in waqtigii uu dhacayay falka uu cunteynayay shaqadiisuna ayba ka badneed maalinka sidaa darteedna uusan wax lug ah ku lahayn ficilkaas. dambi baarihii labadooduba markii ay sida u hadleen isla markii waxa uu garowsaday uu aqoonsaday kii dhakhtarka dhibka u geystay isagoo aan meel kala dayin waxa uu askarigii booliska ku amray in xabsiga uu ku tuuro. haddaba labada ninkee isleedahay dambi baaraha waa uu aqoonsaday isku day inaad ra'yiga ay cabirto kuna qorto qaybta kommentiga. dhacdada filimku waxa ay bilaabanaysaa 2012 kadib hoos u dhicii waalid ahaa ee ku yimid dhaqaalihii dalka Ameerika taasi oo gaartay heer aad u hooseeya waxayna keentay in daruufo aad u tiro badan ay waddanka ka dhacaan sidoo kalena uu bato dilalka aan loo mayaldayin xitaa in maxaabiistu ay isku dhex dilaan xabsiyada dhexdooda. ugu dambeynna maamulayaashii xabsiyada markay eegeen xaaladda ka jirtay waddanka waxa ay keenayaan tartano islayn ah yacni isdil ah kii laga adkaadana ay noqon doonto dhammaadka noloshiisa waxayna halkaa maamulayaashu ka samayn doonaan lacag waali ah. intaa kadibna waxa ay isku waafaqayaan in ay tartamayaashu ku tartamaan gawaari weliba ay ka wada buuxaan oo ay kor ka saaryihiin qoryo waaweyn. maxbuus walbana waxa uu la dagaalamayaa maxbuus kale oo la tartamaya si uu u helo xorriyadiisa oo uga baxsado xabsiga. intaa kadibna waxaan aragnaa ninkan oo lagu magacaabo Frank waa midka ugu daran uguna halista badan tartamayaasha sidaa oo ay tahayna waxa caawiye u ah gabadhan oo lagu magacaabo Kaysa balse haddii aad tahay tartamayagtaada lagama waayo mucaarad yacni mid kaa soo horjeeda. waxaa Frank ka soo horjeeda ninkan oo isaguna lagu magacaabo Bishong mid walba oo labadoodu ka mid ah waxa uu haminayaa inuu hanto guusha si uu u helo xorriyadiisa. dhanka kale intuu socdo tartanka waxaan aragnaa shakhsi kale oo isaguna lagu magacaabo Joe waa mid kale oo isaguna ka soo horjeeda Frank doonayana inuu nafta dhaafiyo. sida iska cadna saddexdooda waxaa dhexmaraya dagaal aad u adag ilaa gabadhii Kaysa ay dareentay in Frank markan laga adkaan rabo waxayna go'aansanaysaa inay isaga tagto laakiin Frank waxa uu ku soo celinayaa isla gaarigii ilaa uu helo liminta ugu dambeysay ee guusha. nasiib xumo markii uu gaaray xariiqii ugu dambeysay ee guusha mar qor waxaa hub culus ku soo ridaya Joe ilaa Frank uu ku nafbax meeshii uu toos u geeriyoodo. maalmo kadib dhacdada markan waxaan aragnaa ninkan oo lagu magacaabo Jason waxa uu joogaa warshad laakiin markan waxaa loo sheegayaa shaqaalaha idil in shaqada warshada la joojinayo isla markiiba waxa uu imaanayaa goobtii lacag bixinta sikistii dhididkiisa uu u qaato. in yar kadib gabadhii fadhisay lacag bixinta waxa ay siinaysaa in ka yar intii uu hore uga heshiiyey. Johnson aan war kala gelinba markii waxa uu saaxiibadii u sheegayaa inay meesha ka kiciyaan foodo balse waa goor ay goobtu soo gaareen boolis aad u tiro badan waxayse arrintu ugu dambeyn keentay inay isku dhacaan booliskii iyo raggii la socday Jason. in yar kadibna wuxuu isaga soo laabanayaa gurigiisa balse markan waxa uu soo dhacaya tuug wata biskoolad misna wejigiisa aad u qarsaday isla markiiba waxa uu ka takhalusayaa Jason xaaskiisa. in yar kadib Jason markii uu waayo dhaqdhaqaaqeeda waxa uu soo degayaa qaybta hoose markiiba waxa uu imaanayaa xaaskiisa oo meyd ah isagoo raba meydka xaaskiisa inuu u soo dhawaado ninkii dilay waxa uu indhaha ugu shubayaa sun ilaa Jason uu kala garan waayo waxa hareerihiisa oo ugu dambeyn ku miirdaboolo meesha. in cabaar kadib markii uu soo tooso waxa uu arkayaa gurigii oo ay wada joogaan boolis isla markiiba waxa ay u kaxaynayaan xaruntoodii ilaa ay ku xukumeen xabsi daayin oo ah qisaasta inuu dilay xaaskiisa. 6 bilood kadib Jason markii uu ku qaata xabsiga waxa haddana loo soo wareejinayaa xabsi hor leh oo ku dhex yaala gudaha jasiirad xigta bartamaha badda. markii uu soo galo gudaha xabsiga markiiba waxaa soo kaxaynaya askarigan oo lagu magacaabo Oldger si uu u geeyo qolkiisa. Johnson markii uu imaaday iridda qolka wuxuuba ka war helayaa inay gudaha ku jiraan 3 maxbuus kuwaas oo markiiba u muujinayay inay dilayaan. daqiiqado yar kadib markii uu soo galo waardiye oo isla qolkii soo kormeer waxa uu ka war helayaa Johnson oo ka takhalusay 3dii maxbuus isagoo aad ula yaaban awoodiisa uu isaga tagayaa. subaxii xiga markii la gaaray xilligii quraacda Johnson waxa uu soo qaadanayaa quraacdiisa waxa uu iska soo ag fadhiisanayaa goob ay maxaabiistu ku cunteynayeen. in yar kadib isagoo meeshii iska fadhiya waxa uu imaanaya ninkan oo lagu magacaabo Boshing wuxuu bilaabayaa inuu ku jeesjeeso Jason oo hadalkiisa u dulqaadan markiiba waxa uu bilaabayaa inuu garaaco ilaa ay kala qabteen booliska sidoo kalena ay u soo kaxeeyeen xafiiskii maamulada xabsiga. maamuladii markiiba waxa ay ogaanaysaa Jason inuu xariif ku yahay wadida gaarida sidoo kalena uu leeyahay awood buuxda markiiba waxa ay u sheegaysaa inay doonayso inay ku bedesho Frankigii dhintay maadaama Frank dadku ay aad u jeclaayeen laakiin sidoo kale aysanba aqoonin weji ahaan maadaama Frank markii horeba uu xirnaa mask sidaa darteed iyaduna waxa ay u sheegaysaa inay u xirayso maaskigiisa oo kale maadaama dadku aan wejigiisa dhabta si fiican u aqoon waxayna u ballan qaadaysaa haddii uu guuleysto 5 ciyaar in halkan uu ka bixi doono iyadoo xitaa u sheegaysa in Frank uu guuleystay 4 ciyaar balse tii shanaad laga awood badiyay. Johnson markiiba waxa uu sheegayaa in hadalkeeda uusan aaminaynin laakiin manageradu waxa ay dhigta ugu dhibcinaysaa haddii uu tani samayn waayay inay geyn doonto xabsi kaligiisa ah cimrigiisana uu halkaa ku dhammaysan doono. Johnson oo xal kale u furnayn uu aqbalayaa. intaa kadibna waxaa la keenayaa xaruntii farsamada ee baabuurta halka
halkaasoo ay joogaan farsamayaqaano lagu kala magacaabo coach corner iyo les, halka maaneejarada iyaduna ay ka daaweynayso qayb kore si ay ula socoto xaaladiisa oo idil. farsamayaqaankii coach isaguna waxa uu Jason keenaya gaariga uu ku tartami lahaa, isagoo oo kala baraya dhinac walba oo gaariga, xitaa siduu isaga difaaci lahaa xabadaha iyo rasaasta. wuxuu noo sii sheegayaa inaan wax rasaas ah lagu sii shubi doonin ilaa laga gaarayo maalinka uu bilaabanaya tartanka, si mid ka mid a tartamayaasha uusan u cararin. haddana waxay isku sheegayaan inay adkaan doonto in halkan laga baxsado, maadaama goobtu ay tahay jasiirad ku taala bartamaha badda, ayna xitaa haddii ay dhacdo inuu isku dayo qof inuu baxsado uu waajib ku noqon doono inuu maro buundada looga baxo jasiiradda. balse maalinka waxaa goobta la dhigi doonaa qaar ka mid ah booliska. sidoo kale les isaguna wuxuu Johnson u sheegayaa in tartanka uu yahay 3 xeer oo ay tahay in mid koowaad uu kasoo baxo, halka heerka ugu dambeeyana ay tahay inuu galo kaalinka koowaad, taasi oo ka dhigan in xawaaraha gaariga uu sare u qaado si uu u guuleysto. wuxuu noo sii sheegayaa in maalinka tartamo walba uu leeyahay gabar caawiya oo ah, taasi oo shaqadeedu ay tahay kaliya inay kala tusto kalena barto shuruudaha iyo calaamadaha uu leeyahay tartanka. intaa kadib haddana waxa uu kala barayaa Johnson qaar ka mid a tartamayaashii la tartamayay iyo heerarkoodaba. in muddaha kadib Johnson oo markaan iska fadhiya goob waxa uu imaanaya Joe oo ah kii dilay Frank xilligii u dambeysay ee tartanka. wuxuu Johnson u sheegayaa inuu dhow yahay waqtigii uu dili lahaa, isagoon wax kale ku hadaaqinna uu isaga tagayaa. isla xilligaana xabsiga waxaa imaanaya koox rag ah oo saaran gaari qam ah, balse gacmahoodu ay ugu xiran yihiin aalado. Johnson markii uu arko waxa uu xasuusanayaa in ninkii dilay xaaskiisa aaladan oo kale ay gacanta ugu xirnayd, wuxuuna markiiba meel ku xariiqanayaa in midkii dilay xaaskiisa uu joogo halkan, yacni xabsigu uu kula jiro. intaa kadibna markii la gaaro maalinkii tartanka, maamuladii Johnson waxay u gelinaysaa wax walba oo lagu garanayay Frank si aan loo kala fahmin inta uu tartanku socdo. Johnson markii uu soo aado goobtii uu yaalay gaarigii tartanka, waxaa la hadlaya makaanikiistihii coach isagoo u sheegaya inaanu ku qancaynin waxaan ka hayn gool. sidoo kalena waxa uu tilmaamayaa inuu iska furi karo qalabka ugu xiran wejiga marka uu galo gudaha gaariga, maadaama miyaaradaha aan laga arkaynin waxa gudaha gaariga ku jiro. dhanka kale Johnson marka uu soo galo gudaha gaariga waxa uu imaanaysa gabadhii caawin lahayd, waxaa lagu magacaabaa Case, waa isla gabadhii la socotay Frank xilligii uu ku jiray tartanka. Johnson markay soo gasho gudaha waxa uu weydiinayaa sababta ay xabsigan u soo gashay. waxay u sheegaysaa in markii hore ay saaxiibkeedii dishay, taana ay sababtay inay gudaha xabsigan soo gasho. intaa kadibna waxaa bilaabanaya tartankii. shuruudda koowaad ee tartankuna waa in wareegga hore aan la isticmaalin wax hub ah. Johnson oo adeegsanaya khibradiisii sidoo kalena wehel ka dhiganaya gabadhii waxa ay awoodayaan inay kasoo gudbaan wareeggii hore. intaa kadibna maaneejaradii waxa ay fasaxaysaa hubka. Johnson markii uu bilaaway inuu adeegsado rasaastii ku xirneyd gaariga, markiiba way ka ciladoobaysaa ilaa gabadhu xitaa ay bilowday inay usoo baxdo banaanka si uu ogaato ciladii haysatay qoryaha. sidaa oo ay tahay haddana waxa uu adeegsanayaa aalada difaaca jirka si uu marka hore naftiisa u difaaco, laakiin sidoo kale gabadhi iyaduna ma helayso waxa ay ahayd ciladii haysatay gaariga. intaa kadib Johnson waxa uu keenayaa fikrad isagoo gabadhii ku amrayay inay badasho kursigeeda, halka isagana kursiga uu adeegsan doono hub ahaan. sida iska cadna markii uu riixo batankii kursiga waxa uu ka fuqayaa meeshii ilaa uu ku dul qarxo gaarigii ka dambeeyay ee fooda ku hayay. balse mar qura waxa uu arkayaa booshinka oo adeegsanaya qaabkii uu isticmaalayay ninkii dilay xaaskiisa, isagoon meel kale eeginna waxa uu tuhumayaa Boshing. dhanka kalena dhammaadkii wareegga Johnson waa laga guuleystay, waxaana kaalinta koowaad galay Boshing, halka kaalinta labaadna uu soo galay Johnson. waxa uu fadhiyaa booska saddexaad ama kaalinta saddexaad. markii uu dhammaaday wareegga, coach iyo saaxiibadii waxay bilaawayaan inay raadiyaan oo ay ogaadaan ciladii gaariga haysatay, waxayna dareemayaan in gaariga uusan haysanin wax cilad ah, balse ciladu ay ka jirto kaliya dhanka hubka. Johnson isaguna waxa uu u imaanayaa maaneejaradii xabsiga isagoo u sheegayay in Boshing uu yahay shakhsigii dilay xaaskiisa, sidaa darteedna uusan badhamaysanaynin tartanka. laakiin maaneejaradu waxay bilaabaysaa in marka hore ay dejiso una sheegtay in marka hore uu dhammeeyo tartanka. intaa kadibna waxa uu isaga soo laabanayaa bartamihii xabsiga. waxaa markiiba uu imaanaya makaanikiistihii gaariga ee Coach, waxa uu weydiinayaa sababta uu joogo xabsiga maadaama waqtigiisii uu dhammaaday. Coach waxa uu sheegayaa in banaanka ay halkan ka wanaagsan tahay, yacni xabsigu uu noqday meel aad ugu xasiloon, sidaa darteedna uu doorbidayay inuu ku nagaado goobaha tartamada iyo xamaasadda ay ka jirto. intaa kadib habeenkii markii la gaaray xilli dambe, Johnson waxa uu soo aadayaa dhankii Boshing isagoo u imaanaya gadaal si uu u dilo. nasiib xumas waxaa kusoo xoomaya kooxdiisii oo Johnson waxay ku bilaawayaan garaacid ilaa uu soo istaajiyo Boshing isagoo raba inuu si toosa u dilo. nasiib wanaagis isagana waxaa gadaal ugu imaanaya makaanikiistihii Les si uu u badbaadiyo saaxiibkii. isla xilligaana Johnson oo fursadda ka faa'iidaysanaya waxa uu isagina laaynayaa kooxdii ilaa uu ka takhaluso, halka Boshing isaguna waqtiga xaaladiisu ay ahayd mid aad u daran. balse mar qura waxa uu ku hadaaqayaa in maaneejaradu ay soo amartay inuu dilo xaaskiisa, halka askariga Aldridge-na uu ahaa shakhsigii ka dambeeyay in halkan uu yimaado. Johnson hadalka markii uu maqlo waxaa galaysa cara zaa'ida, wuxuuna bilaabayaa in si toosa u dilo oo nafta dhaafiyo. nasiib xumas waxaaba meeshii imaanaya askariga Aldridge uu bilaabaya inuu ka celiyo. intaa kadibna markii la gaaray maalinkii labaad ee tartanka, Boshing waxa uu Johnson ugu jeesjeesayaa qaabkii uu sameynayay markii uu dilayay xaaskiisa. wax yar kadibna markii uu bilowday tartanka, Johnson waxa uu gabadhii weydiinayay inay u sheegto waxa ay u dhici lahaayeen rasaasta iyo hubka saaran gaarigiisa, isagoo u goodinaya haddii ay u sheegi weyso in nafteeda ay weyn doonto. gabadhii oo ay ka muuqato cabsi waxay ku hadaaqaysaa in maaneejaradu ay sidaa amartay si uusan isaga ugu guulaysanin tartanka, sidoo kalena baaqi uu kusii aado xabsiga oo uusan weligii ka bixin, ama tani ay noqoto dhammaadka noloshiisa. Johnson arrinka
arrinka markii uu maqlabo waxa uu bilaabayaa inuu adeegsado dhammaan quwadiisii si uu isaga celiyo raggii kale wuxuuna mar kale fursadba ku helayaa gaarigii Boshing iyaga oo muddo isku furayay rasaas ilaa ay wax iska qaadi waayeen oo ay ku kala laabtaan wadooyinkoodii laakiin mar qura gaarigii Boshing waxa qabsanaya dab la hal mar uu wad qarxo halka Boshing oo naf ahna uu ku soo dhaco dhulka isla xilliga Johnson waxa uu go'aansanayaa inuu ka takhaluso oo toos ugu dhameeyo si uu u argudo xaaskiisa intaa kadibna markaan waxaan aragnaa manageradii oo ku hadeeqayso waatan waqtigii uu banaanka imaan lahaa waxshiga kaasi oo ay kala jeedo gaarigan awoodda badan si uu uga takhaluso oo uu tartanka ugu reebo gawaarida ay iyadu aysan doonaynin laakiin markaan waxay amraysaa in dhammaan tartamayaashu uu wada laayo nasiib wanaagsa waxaa ka badbaadaya Joe iyo Johnson isla waqtigaaba Johnson wuxuu la xiriirayaa makaanikistiisii la isagoo ka codsanaya inuu isku xiriiriyo isaga iyo Joe sida iska cadna markay isla hadlaan Johnson waxa uu sheegayaa Joe in si walba ay noqoto ay ka takhalusan waxshiga yacni gaariga awoodda badnaa ilaa ay ugu dambeynba ka takhaluseen intaa kadib manageradii oo aad uga carootay waxay amraysaa in si walba ay noqoto laga takhaluso oo la dilo Johnson waxayna askari Aldridge ku amraysaa inuu gaarigiisa ugu xiro bam intaa kadib markii la gaaro maalinkii saddexaad yacni maalinkii ugu dambeysay ee tartanka manageradu waxay hal meel isugu keenaysaa tartamayaashii oo idil iyadoo xasuusinaysa in la joogo oo ay tahay maalinkii ugu dambeysay ee tartankooda isla xilliga ay hadlaysana askarigii waxa uu gaarigii Johnson ugu xirayaa bam iyagoo aanan arkaynin manageradu markii hadal ka dhamayso Johnson waxa galaya shaki ah in ay wax un qorsheynayso qaas ahaan markii ay tiri qof ayaa badi doona maanta ciyaartiisii shanaad kana bixi doona halkan wuxuuna markiiba la hadlayaa makaanikiistihii coach isagoo ka codsanaya inuu gaarigiisa ka soo hubiyo kuna sameeyo baaritaan oo idil intaa kadibna Johnson waxa uu la kulmayaa Joe iyagoo uu ku heshiinayay in ciyaartan ay noqdaan hal dhinac wuxuuna Johnson markiiba bedelanayaa dharkiisa laakiin mar qura waxa uu imaanaysa manageradii oo sida warqad iyadoo u sheegaysa in warqadani ay tahay tii uu uga bixi lahaa goobtan haddii uu badiyo ciyaartan sida iska cadna wuxuu waqtiga wareegaba waxa la gaaray waqtigii ay bilaaban lahayd ciyaarta in yar kadibna waxaa gudaha gaarigaba u soo galaysa inantii caawinaysa ee Case laakiin markan waxaa amar lagu soo siiyey inaysan toos u caawin Johnson si uusan u badinin ciyaarta intaa kadib markii ay ciyaartu bilaabato xabaduhuna ay kululaadaan Joe iyo Johnson waxay bilaabayaan inay isku garaacaan madaafiic laakiin mid walbaba waxa uu ku aadinayay dhinacii wadada buundada isagoo iska dhigaya inuu ku ridayo kan kale laakiin manageradu oo maskaxdaaba dareensaneed waxay dareemaysaa in Joe iyo Johnson ay doonayaan inay goobtan ka baxsadaan maadaama dhinacii buundada ay wada bateen sidoo kalena ay burburinayaan goobihii ilaalada markiiba waxay askariga Aldridge ku amraysaa inuu qarxiyo bamkii gaarigii Johnson laakiin waa mar ay damiyeen Johnson iyo saaxiibadii manageradii waxay haddana bilaabaysaa inay kasoo daba dirto askar si loo soo qabto laakiin waxaa ku qarxaysa benziin oo hore meeshii Johnson ugu sii diyaariyey intaa kadibna Joe iyo Johnson waxay kala raacayaan laba wado balse mar kale Johnson waxaa soo hareereynaya boolis laakiin gabadhii Casey markan waxay go'aansanaysaa inay caawiso iyadoo u sheegaysa in iyada uu ku wareejiyo gaariga isagana uu ka boodo halka sidoo kalena ay xiranayso maskii uu wajiga ku watay si loogu moodo in isagu uu weli saaran yahay gaariga in cabaara kadib markay boolisku gaariga qabtaan waxay ogaanayaan in talo aysan gacantooda ku jirin oo ay baxsadeen raggii intaa kadib markii ay ku soo laabtaan manageradii waxa ay u keenayaan sanduuq hadiyad camal ah laakiin markii ay furto waxayba ku noqonaysaa ban taasi oo kaliftay in meesha ay ku dhimato ugu dambeynna filimku waxa uu soo dhammaanaya 3 bilood kadib Joe iyo John sidoo kale gabadhii Case oo wada furanaya goob garaash ah haddaba waxaynu soo gaarnay gabagabada iyo gunaanudka mawduucina maanta waxaan rajeynayaa in muuqaalka la dhacday sidoo kalena aad la wadaagi doonto ugu yaraan mid kamid ah saaxiibada si isagana ugu daawado mahadsanid